weerarku wuxuu ku bilaabmay qaraxyo, mootooyin isqarxinaya, baabuur isqarxinaysa, dad isqarxinaya, balaayo iswada qarxinaysa ayuu ku bilaabmay. Weerarku ku bilaabmay hase ahaatee ciidamadu waa ay ka guuleysteen waana ka gacan sarreeyeen raggii isqarxiyey iyo mootooyinkii isqarxiyey iyo baabuurtii isqarxisay iyo wixiiba ciidanku cagta ayay mariyeen. Haddana ciidamada ayaa goobihii lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya. Waxaad moodaa Daacish inay firigtii ugu dambeysay uu ka ahaa weerarkani marka la eego dhulka baaxadda leh ee laga qabsaday. Ciidamadu si ay ugu sii siqayaan fadhiisimaha iyo saldhigyada mar walba laga furanayo. Waxaa laga dilay 13 ajaanib ah oo ka dhimatay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay sameeyeen Africom. Waxaa kaloo ciidanku uu soo bandhigay meydad aad u tiro badan oo ay ku jiraan dad go'ay, dad madaxyada go'een, dad luguhu go'een, dad qof aad arkaysid kaliya lugtiisa meesha taala, calooshiisa meesha taala. Waxyaabo badan oo waxyaabahaas ayaa aad arkaysid. Xaalad adag bay runtii ahayd. Niyo marka waxaa isdhihi karaa ciidamada Puntland si fiican oo la yaqaano ayay raggaasi ay cagta u mariyeen. Haddana waxay ku sii siqayaan dhinaca xeebaha. Bayaalada lahaanteen baa joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka lagu ciribtirayo kooxda Daacish ee ka socda buuraleyda Calmiskeed. waxaa idinla socodsiinaya Maxamuud Cali Xasan oo aniga ah saaxiibka Toronto ayaa igala qayb qaadanaya oo aad ugu dhulun doolaalaha arrimaha Puntland qaasatan dagaalada ka socdo Calmiskeed. Axmed soo dhawow. Sida aad sheegtayba saaka hirti waa bari waxaa weerar culus la kulmay ciidamada Puntland kaasoo ay soo qaadeen Daacish. Weerarku wuxuu ku bilaabmay qaraxyo, mootooyin isqarxinaya, baabuur isqarxinaysa, dad isqarxinaya, balaayo iswada qarxinaysa ayuu ku bilaabmay. Weerarku ku bilaabmay hase ahaatee ciidamadu waa ay ka guuleysteen waana ka gacan sarreeyeen raggii isqarxiyey iyo mootooyinkii isqarxiyey iyo baabuurtii isqarxisay iyo wixiiba ciidanku cagta ayay mariyeen. Haddana ciidamada ayaa goobihii lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya. Waxaad moodaa Daacish inay firigtii ugu dambeysay uu ka ahaa weerarkani marka la eego dhulka baaxadda leh ee laga qabsaday. Ciidamadu si ay ugu sii siqayaan fadhiisimaha iyo saldhigyada mar walba laga furanayo. Waxaa laga dilay 13 ajaanib ah oo ka dhimatay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay sameeyeen Africom. Waxaa kaloo ciidanku uu soo bandhigay meydad aad u tiro badan ku jiraan dad go'ay, dad madaxyada go'een, dad luguhu go'een, dad qof aad arkaysid kaliya lugtiisa meesha taala, calooshiisa meesha taala. Waxyaabo badan oo waxyaabahaas ayaa aad arkaysid. Xaalad adag bay runtii ahayd. Niyo marka waxaa isdhihi karaa ciidamada Puntland si fiican oo la yaqaano ayay raggaasi ay cagta u mariyeen. Haddana waxay ku sii siqayaan dhinaca xeebaha. Waata Axmed dagaalkii saakay aad buu cuslaa. Duqeymo ayaa dhacay, qarxi ayaa dhacay. Ma la sheegi karaa khasaaraha soo gaaray dhanka Puntland intuu la eg yahay? Caddo waa mahadsan tahay. Dagaal markii la gala dee kolley khasaara wuu jirayaa. Waxaan ka warhaynaa in ciidamada sida hadda TV-ga Puntland uu shaaciyey dhaawacyo iyo dhimasho way jirtaa. Hase ahaatee khasaaraha aad u kooban yahay ciidanka soo gaaray. Weli tira koob rasmi lama sameynin maadaama goobihii lagu dagaalamay weli uu goor dhaweydba ay soo gaaray dagaalku. Marka waa la ogaan doonaa laakiin waxaa la sheegay in khasaaruhu mar walba oo dhinaca kale u badnaa. Waan gartay waxaad sheegtay in wararkii ay soo qaaday kooxda naflacaariga ee Daacish looga jawaabay duqeymo dhanka cirka ah. Duqeymahaasi yaa toos u fuliyay goobaha lala beegsaday maxay duqeymahaas waxaa fuliyay ciidamada Africom waxayna soo saareen saxaafadeed. Waxay sheegeen in ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugnaayeen dad ajaaniba oo Daacish ah kuwaasi oo iyaguna ku jiray dhulka burleyda ah
cadda waa mahadsan tahay. Dad shacabka reer puntland dal iyo dibadba way dadaalayaan. waxaan hadda arkaya ciidamada puntland oo loo geynayo sahay kala duwan, loo geynayo saad, loo geynayo maaragtay daawooyin, kuwaasi oo ay ku tabarucayaan dadka reer puntland ee maaragtay gudaha iyo dalka dibadiisaba jooga. dagaalkan runtii waa dagaal adag waaye, waa dagaal u baahan in maaragtay gacan laga geysto, ciidamada maaragtay la caawiyo. dee puntland dagaal keligeed ay ku filan tahay ma aha. waxay ahayd in maaragtay dagaalkan dowladda federaalka ah ay ka gacan siiso. hase ahaatee siyaasadaha isdiidan ee dalka ka jira ayaa keenay in dad ay ka maqnaadaan federaalka. hase ahaatee waxaan rajeynayaa haddii iskaashadaan dadka reer puntland iyo mataqaanaa shacabkoodu inay dagaalkan ay ku guuleysanayaan, kana guuleysanayaan dadka hadda ay la dagaalamayaan. waa tahay doorada ugu dambeyntii dhanka haddii la fiirsho dagaalka iyo qaabku hadda u socdo, daacish halkay u dambeyn doonto ayaa is leedahay? mase way rogaal cidi doontaa, mase xilligii baaba ayay joogtaa? wallaahi markaan dhahno daacishta soomaaliya horta meesha kaliya joogeen wuxuu ahaayeen buuraha calmiskaad ee gobolka bari ay ku dhumaaleysanayeen. dad badan oo ajaanib ah oo wadanka yimid oo dad yaman iyo syria iyo meelo kale ka yimid oo iyagana ku biiray way u badan yihiin. marka waxaad moodaa hadda dhinaca xeebaha inay u shaqeeyaan, inay ka degayaan buuraha dhulkaas xeebaha ay tegayaan. xeebaha hadday tagaanna waxay ku qasbanaan doonaan inay maaragtay doonyo ay fuulaan oo meelihii ay ka yimaadeen ajaaniibtu ay aado. soomaaliduna inay soo dhiibaan oo qoryaha iyo maaragtay wixii huba inay keenaan bay noqonaysaa. marka waxay u badan tahay hadda in aada loo wiiqo rajada iyo maaragta xaaladdu siday ku socoto marka la fiiriyo. waa tahay saaxiibayaal, guud ahaan inta ayaan kusoo koobaynaa muuqaalkii koobnaa oo aan kaga hadlaynay xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka calmiskeed. tan iyo muuqaalkiisa xiga inta aynu ku kulmi doono, nabadgelyo.